xaflad kooban oo lagu wareejinayay gaarigan iyo gaadiid kaleba waxaa lagu qabtay ilinka hore xarunta cilaajka Daarutooba xilli sheekhu ka yimid shaqadiisa cirka soo saarista guryaha ee looga bartay isagoona u dhaadhicin gudaha cilaajka ayuu isla gaadiidkaasi xareerta ka dhigay labadiisii gaari ee hubanaa astaanta xarunta maadaama caawa fiidkii dekedda magaalada Muqdisho laga soo saaray noocyo kala duwan oo gaadiidka raaxada ah balse sheekha ugu talagalay in loogu adeego dadweynaha Soomaaliyeed haddaba marka laga reebo saarifta iyo noohada ku xardhan Daarutooba intooda kale gaadiidkan ee kala ah Premier Toyota Wish Prado Ultimo iyo Proof Jibis Prado dhaqaalihii lagu soo iibiyay waa abaalmarin ka timid hal qoys alla sheekha tuftiisa ku shaafiyay aabahoodii kala soo qoosteen caafimaadkiisii wadamo badan oo dibadda ah isla markaana lagu tiriyo wadamadaasi kuwa kaalmaha hore kaga jira dhanka caafimaadka ama tayada caafimaadka hase yeeshee iyagu lacag isku xiran ayay sheekha u soo garteen walibana yoolkeeda ahaa sidii sheekhooda agtooda qaaliga ka ah loogu iibin lahaa gaari aan karin xabadda laakiinse qofka sidan u kala habeeyay ee intaanoo gaadiid ama intaanoo gaari lacagtaasi ku soo iibiyay ama in lagu soo iibiyo ku taliyay ayaa ah sheekha cilaajka Daarutooba Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle Sheekh Rusheeyare ugu horeyntii Cali Maxamed Guure Cali Dheere maamul xigeenka cilaajka Daarutooba oo loo soo wakiishtay hadiyadan ka timid qoys ku farxay caafimaadka waalidkooda isla markaana Cali Dheere aad u barteen muddadii ay deganaayeen qaybta jiifka ee xarunta ayaa sheekha guddoonsiiyay furaha mid ka mid ah gaadiidkii ugu qaalisanaa ee gabaaradii caaba la keenay kaasoo qiimihiisa lagu qiyaasay lacag ku dhow $30,000 Mareykanka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkaan joogno waa xaruntii weyneed cilaajka Daarutooba maalmahan shaqadii iyo hawlihii waa ku guda jirnay aniga waxaan magaalada Muqdisho ayaan ka soo hadlayaa waxaan rabaa dad aniga isoo wakiishay oo lacag ii soo diray oo maadaama inay inta yimaadeen maadaama soo dhaweeyay ariboorka aan ka soo qaaday shiiqa aan u geeyay dadkaas oo ka yimid qaaradda Latin America waxay soo dooneen ay heleen markay shiiqa ay arkeen oday xanuunsanaay ilaahay meeshan ku daaweeyay ilmihiisa aniga soo wakiishay waxay ii sheegteen inay macallinkan hadiidsiyan ay rabaan macallinkan ay ka xishoodeen maadaama aniga maamulkii guud ahaan ahay xarunta cilaajka Daarutooba waxay dheen waxaan u baahanahay macallinkan aan gaari proof aan u gadno macallinka taladii la wadaagay macallinku wuxuu yiri aniga inta dad baahan ay joogaan ama dad maaragtay liita ay joogaan gaari proof aniga inaan qaato waajib uga ma ahan arrinkaas ka dhaadhicintii shiiqan ka dhaadhicay shiiqana wuu igu gacan sayray wuxuu yiri gaarigaas kuma soconayo mana u baahni markii dambe oon tashi fara badan iyo howl fara badan iyo dad macnaha inay si wax guddoonsiyaan jecel ay ahaayeen oo maadaama qofkii asigii xoolihii soo dhiibay haddana on gol in shiiq wixii lagu wareejiyo waxaad aan joognaa waa maqrib iyo cisho inta dhaxdooda ah waxaan hor fadhinaa xarunta cilaajka Daarutooba waxaan rabaa dadkii wax ii soo dhiibto ii soo wakiishay gaariga aan soo gaday waa gaarigan oo la yiraahdo Prado Proof Jibis waxa la igu soo wakiishay inaan u gado macallinka shalay ayaan soo gaday waa ka soo shaqeeyay waa soo nadaamiyay ilaa hadda xataa taariikh kuma xirna waxaan rabaa inaan ku wareejiyo gaarigaas aniga wakiil layga soo dhigtay oo lay soo dhiibay oo lacagta dadka ii soo diray xataa magacooda halkan aan ka baahi lahay ay ayaga ay dhahayn magac waxba noo sheegin wixii aan rabnay oo aan rabnay waan helnay rabaa inaan ku wareejiyo gaarigan oo laygu soo lay dhiibtay aniga oo macnaha la yiri ku wareeji shiiqa waxaan rabaa Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle inaan ku wareejiyo gaarigan aniga oo lay soo wakiishay asigana ay u soo hadiyeysay qof bukaan ah oo halkan ku caafimaaday kana timid America haddana ay gala soo hadlaysay America shalana lacagtaas ay ka soo dirtay gaarigaasna aan soo gaday haddana aan taaganahay xarunta cilaajka Daarutooba shiiq waxaan rabaa hadiidaas oo laygu ka soo dhibin adiga guddoonsid geesta kale Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle Sheekh Rusheeyare oo qodobo dhowr ah ka hadlay caawa ayaa sheegay sida qoyskan oo kale inay jiraan ballanqaadyo kaga yimid xubno bulshada ka tirsan insha Allah taala walaalkina Cali aad buu maadsan yahay
sidaad wada garanaysaanba oo maamulihii guud ee xarunta cilaajka Daarutooba ee aan maaragtay u dhibnay qaybtii maaragtay travel agency soo dhaweynta dadka elboorka markay yimaadaan gabadha muslimadda ah ee waalidkeeda xanuunsanayay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanku aqbalay ee Ilaahay ku daweeyay maada Ilaahay baa iskale subxaanahu wa ta'ala thumma gabadha muslimadda ee walaasheena ee khaasatan aniga Cabdullaahi ahaan ee hadiyada ii garatay oo maaragtay walaalkii Calin ay la soo wadaagtay ahna maamuliye xarunta markii koona ahaa in maaragtay gaari buruufa si maaragtay Soomaalida u yaqaanaan baalkan xabada kirin ah in maaragtay hadii ahaan ay ii guddoonsiiso laakiin ana ka diiday waxaan ugu diidan waxa weeye waxaan u taaganahay ummadda muslimiinta dhibaataysan aan caawiyo oo maaragtay aan garab istaago haday noqoto aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo haday noqoto qof aniga aan wax dheerahay intaba marka maadaama dad badan ee baahan qaarkood laga yaabo cilaajka imanaya ayagoonan gurigooda dab laga shidan iyo aniga inay igu yimaadaan anigoo maaragtay gaari buruuf aan ku socdo xaqiiqatan arin aan munaasab ahayn bay ila noqotay oo munaasab ah inaysan ahayn bay ila noqotay insha Allah ta'ala waxaan go'aansaday marka in gaariga laga daayo ayagii ba maaragtay dib isugu laabtay waxa Ilaahay qadar subxaanahu wa ta'ala gaarigan ee gadaashiisa yaala insha Allah toolo la keeno oo haddana maaragtay fugiisa lagu wareejiyay waan uga mahad celinayaa Cali amaanadii loo soo dhiibtay sidii loogu talgalay maaragtay ugu gutay iyo gabadhii muslimadda ay maaragtay garatay intaba waan u mahad celinayaa insha Allah ta'ala sidoo kale maadaama aniga buruufta aan diiday waxyaabaha kale maaragtay ay igula yimaadeen ee maaragtay gabadha halka maadaama ay timid baahida halkan taaleen ay aragtay xaqiiqatan lacagta lagu gadayo buruufta waa lacag dhowl ah marka waxaan gartay in baabuur yar yar ee ummadda loogu khidmeynayo in lagu bedelo sabab arkaysaanba halka waxa yaalo kan marka laga reebo 3 gaari kala baa taala oo maaragtay taargooyinkii u dambeeyay ah oo AI ah marka baabuurta baa lagu gaday waxaan u dalbanaa baabuurta yarna waxa weeye maadaama aan joogno magaalada Muqdisho ee amnigeeduna xaqiiqatan qalqiil isaga jiro baabuurtii waaweyneedna sida caasiga ama baabuurtan kale koosarada ama maaragtay la yiraahdo basaska intooda badan isgoosida aanan gudbi karin oo baabuurta yar loo ogol yahay waxaan dalban marka baabuurta yar Ilaahay maadi ayagana maaragtay wayna soo gaaray waa kuwa maada Ilaahay baa iskale subxaanahu wa ta'ala waxaad arki jirteen kaliya gaariga noohada iyo gaarigu saarifta laakiin hadda maanta way ka bedelan tahay intaba waxa maaragtay gartay walaalo muslimiin ay muxsiniin ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay garasiiyay dadka ahlul quraanka iyo dadka ahlul diinka sharafka iyo karaamada ay leeyihiin Ilaahay garasiiyay dadka ba xaqiiqatan soo garab istaagay xarunta Daarutooba insha Allah ta'ala waxaan rabaa marka aniga in maaragtay ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan aan caawa hal arin iyo hal farin aan la wadaago maadaama bariyahan oo dhan baan ku shaqeynay lacag la'aan laakiin caawa walaalaha muslimiinta ee gartay ee muxsiniinta in walaalahooda dhibanayaasha ee aan soo gaari karin xarunta ama maaragtay guryaha dhibaatada ku haysata baabuur loogu adeego loogu shaqeeyo ayaga ayna la garab istaageen anigana waxaan maaragtay go'aansaday cawada inaan la garab istaago aayaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si free ah inaan ku garab istaago insha Allah ta'ala taa waxa weeye waa go'aan aniga iga soo baxay Ilaahay idinkii inta ay nolosha igu jirtana ummadaas baan u shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala waxaan ugu shaqeyn doonaana si free ah biidhnillaahi al-baari Ilaahay subxaanahu wa ta'ala والله الله يددك مؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ددك مؤمنين تسوى الله الله يبو إلى هيري سبحانه وتعالى سكى الميس السماء يوناجا سكى الميس ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تنبيجا يعليتنك هاي سكى الميس با إلى هيري إنه آيدا كدولنا إيوه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قفك مسلم كأنت ولا الكيس وكالمين يبقى سجن إلهي كالمين يا عز وجل مركا maadaama walaalaha ee muxsiniinta ah ee khaasatan gabadha ay muslimada ah ee waalidka halka Ilaahay ku duway maadaama ay garatay waxa kale jiro dad kale badan ee xaqiiqatan qaybta online-ka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka lagu akhriyay oo Ilaahay ugu shaafiyay ayagana ballan qaaday in xarunta ay dhulal ay u gadaan ka asagana barnaamijkiisa uu socda dhulkii qayb ka mid ah waa la gaday bardhown waxaad arki doontaa insha Allah ta'ala dhismihiisa iyo socda baad arki doontaa bidin al-baari dadka dhisana waa ayaga
maadaama dadka muxsiniinta khayrka saa u garab taagan anigana waxaa go'aansaday maadaama hor dadka hal door ka qaaday baryahana si fiican ku shaqeynay laakiin media aanan ka sheegin inaan cimriga inta ka dhiman aan u shaqeynayo ummadda si fiican ugu shaqeynay maadaama aanan ka sheegin media عاوضاً جعلت إن شاء الله تعالى إن لو ذا مسلمين تدافع عالم ككون أول ملك سيجوجان إني أوجادان أنا وحالي هذا عبد الله الدولة بالي هذا أما عبد الله عمر عبدي دولة إن سيدا ضد كيجو يرانا وحاول أنا شغل شيره بيضت كان يجو عنا ما أنا حقيقة مقعاني الله بحي معهن لكن وحايب بحيي أمد الصوماليات خير كجعل وناجا جعل بايب بحيي مقعسنا والله هاي مقال كي نودقرن إنسان waxaan ugu shaqeynaa ummadda caawa laga bilaabo ay jumco ay tahay in nolosheeda inta ka dhiman ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaa cimrigeena ilaahay ii barakeeyo si ummadda aan ugu anfaco quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala in ma aragtay cimrigeena inta ka dhiman si fiican ummadda aan ugu shaqeyn sidoo kale sheekha ayaa bidaamiyay warar ka soo gaarayay cilaajada qaar kuwaasoo sheekha waxyaabaha ay ku arkeen moodeen inuu magac iyo maalba ka dhaxlay balse sheekha ku sifiyay talaabadaasi mid xabaarsan ku dayasho qalafsan insha Allah ta'ala waxaan rabaa markaan hal fariin aan u raacsiyo ummadda muslimiinta kuwa jooga gobolka Banaadir iyo gobolada dalka Soomaaliya iyo kuwa qurba joogta dad baa jira aniga magacayga ku shaqeysanay qaybta online ka maalin walba waxaan xalinaa dad anigu magacayga lacag looga qaatay $70 $180 $160 dadka looga qaatay xaqiiqatan lacagtaas anu kama qaadeen dadka qaybta online ka maadaama ma aragtay ayaga laftirkooda internet iyo aalada iyo ma aragtay qalab loogu adeegayo laakiin lacagta aan ka qaadayo ma ahan $60 iyo $70 iyo $160 iyo $180 $170 ma qiimo ma dadka ka qaada qiimaha dadkana way garanayaan anigana waan garanay ilaahayna uu garanaya subhanahu wa ta'ala marka waan uga digayaa dadka Muqdisho jooga oo gobolka Banaadir iyo kuwa gobolada dadka aniga iska kay dhigaya ma aragtay haday noqoto taxriisha dadka lagu rusheynaya iyo haday noqoto baabuurta ma aragtay la buufinaya oo ma aragtay aan ugu talagalnay ummadda muslimiinta in lambaran halka ay ka qortaan mid kale dadka shaydaanka ee ku jira cadowga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda muslimiinta gumaadaya maadaama ay asaga dagaal naga dhaxeeya aragti naga dhaxeysa oo Ilaahayna in badan oo kamid ah guule iga siiyay shayaadiinta waxaan ugu talagalay in ma aragtay aan ku argagax geliyo إلهي سبحانه وتعالى عدو جيسا الشياطين تنكو أرجع جليو بقولت وحنا أبو في وسيدة ما نحيسين أنا إسحيسي إنك صعد لي شيء يا ضد بابورة صاقتي بوفيستي إسكودي إن أنا كوبيان أما مارت كوبي أنا كوبيان إن يكون غنيان عبد الله وأنا جوجا مجال المقدسة مركا ضد كايجا وأنا أودي إن شاء الله تعالى ومضى مسلمين تا يعني كوبيين هذين قط روشانتي هذين قط غيبت أونلاين كدار التوبة هذين قط أنا بابورتي لبوفيني انتبه waxaad mooday baabuurta aan buufinay qofka baabuurta buufista ama ma aragtay hatira badnaadaan ama laba qof ha noqdaan ama dad badan ha noqdaan waxaad mooday inay isku xayisiin laakiin isku ma xayisiin waxaan sameynayaa caawa baan ka jeexayaa stickerka meesha ku dhagan waan ka jeexayaa caawa hadii si ma aragtay wax kale ay dhicin marka hadaad mooday inaan isku xayisiin anaga xayisin ugu ma talagelin waxaan ugu talagalnay ummadda muslimiinta in ma aragtay aan ugu khidmayna cadawga ku jirana in ma aragtay aan ku argagax gelino istiikarada haddaan u diraya labada baabuurba caawa laga fiiqaya marka walaalaha muslimiinta oo ugu diga dadka noocaas oo kala ah qaybta online-ka iyo qaybta ma aragtaa Allahu musta'an baabuurta la kubiyeynaya intaba waana ugu diga insha Allah ta'ala intaas aan uga baxay hada billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baabuurta istiikarada laga fujiyo sheekha ayaa doonayay inuu gacantiisa ku fiiqo istiikarada dadiyooga doonaya cilaajka kaalin weyn kaga qaata in ay ku soo hagaagaan ama ay bartaan astaamaha cilaajka iyo sheeqaba lagu garto hase yeeshee anigoo Maxamed Yuulka inta kaamirada gadaasheeda ka soo baxay ka dalbaday sheekhiga inuu go'aankaasi dib uga laabto taasi ayna igu raaceen xubnihii maamulka iyo shaqaalaha isugu jiray ee halkaasi ku sugnaa muuqaalkii aan duubay maxaa ugu soo wareegsaday matakan cali baalkan waxa waaye boorka xarunta boorka ku dhigno dadka ma soo raacano gaadiidkan sasoo lagu diyaabo boorka markuu meel maraa waxa la gaariga macalinka waay waxa ugu sukay waxa waa nambarada laga qoranaa iyo calaamadii loogadii iyo xarunteeda ma ahan waxaan war dad waxaas in la raaco maahan
baalkan dadka faa'iido ku qabo loo dhaafo sama dad ka dhigtay laakiin koobi ka dhigtay dad koobi ka dhigtay waxay rabaan ka dhigtaan laakiin dadkaas anaga faa'iido weyn ku qabo waa loo dhaafo dadkana faa'iido ku qabo anaga wala dadka u shaqeynayso sama dadka faa'iido ku waana wada gaadiidkan markii uu boorkan ku dhigay markuu cad yahay waqal ahaan waxa fiican markaan duubayo soo boorka loogada leh xarunta leh gaadiidkan gaaraya ilaa 6 gaari markan waxaa lagu dibiri doonaa baahiyihii isdaba joogga ahaa ee kumanaanka kun ee cilaajka imanayay kaga imaanayay sheekha waxaana mid walba loo yeelay darwalo heegan ugu jira har iyo habeen waa duustii farsamadii iyo codayntii maxamed yuulka intaan muuqaal kala mid ah kulmi doona asxaabay nabadgelyo